الله naxariistay gaashaan sare Maxamed Cabdi Nuur oo kamid ah saraakiisha hoggaanka ciidanka dambi baarista dawladda Soomaaliya oo shalay koox hubeysan ay ku dileen degmada wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu aasay gudaha isbitaalka Madiino. Aaska marxuumka dhintay waxaa ka soo qayb galay xildhibaano saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda iyo ehelada marxuumka. Cabdiqaadir Xuseen Buule oo ay ehel wadaagaan marxuumka dhintay ayaa ka sheekeeyay taariikh nololeedka Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cabdi Nuur. taariikh nololeedkiisa hadaan ka hadlaan waxa weeyaan Maxamed Cabdi wuxuu dhashay 1951 uu dhashay wuxuu ku dhashay degmada Qoryooley dugsigiisa hoose iyo dhexe wuxuu ku soo qaatay magaalada Baydhabo dugsiga sare Raawgaas oo ka baxay 1974 wuxuu galay 75 ciidamada nabad sugidda Soomaaliyeed meeshaas ayuu ciidamo ahaan ugu biiray wuxuuna ka soo shaqeeyay gobolka Togdheer magaalada Burco iyo wuxuu ka soo shaqeeyay Buuhoodle Laascaano wuxuu ka soo shaqeeyay Xudur oo gobolka Bakool ah iyo nin academic waayo oo dibadaha uu soo waxbarasho dibadeed u aado oo ah ilaa master degree oo gaaray waana nin police ah cornel oo gaashaan sare ah police way hadan wuxuu ka tirsanaa CID da taliye ku xigeenka CID buu ahaa Allah u naxariisto Axmed uu dhintay waxaan u tacsiinaynaa Soomaaliya oo dhan u tacsiinaynaa Cornel Xasan Maxamuud Yuusuf oo ay in badan soo wada shaqeeyeen marxuumka dhintay kana tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka commandoska ayaa Royal TV u sheegay in marxuumka dhintay uu ahaa nin shaqo waxaan tacsi u dirayaa qoys ahaan eheladii family Maxamed Cabdi Nuur ka dhintay Maxamed wuxuu ahaa nin taariikh kula ciidanka Soomaaliyeed خاصة ahaan nabad sugidda iyo booliiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna uu la soo shaqeeyay wuxuu markii dambe uu takhasus u lahaa forensic science sida dambiyada oo aadka u dhib badan leh iyo dilka iyo waxyaabahaas loo kala saaro DNA-da waxyaabahaas ayuu takhasus ku lahaa nin aqoontiisa ay sareyso oo dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin oo ayna ku jirin baqdin iyo waxaanad u dhimanaysaa ay halka lagu dilayaa oo qof caadi ah oo Soomaaliya oo masaajidka shaqadiisa oo Ilaahay aaminsan ayuu ahaa gacan cadow ayuu ku baxay waxaan leenahay Ilaahay jannadii naxariis Allah siiyo annakana sabar iyo iimaan Allah naga siiyo xildhibaan Sandheere oo kamid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay aaska marxuum Maxamed Cabdi Nuur ayaa Allah ugu bariyay in marxuumku jannada ka waraabiyo waxaan u taasiyeenayaa ehladii iyo waxa la yiraahdaa borooli gurigeeda u hoyata ilmihiisi iyo xaaskii baan u taasiyay waxa kale u taasiyeenayaa asxaabtii uu lahaa Maxamed Cabdi Nuur anigu si fiican baan u garanayay daraad waxaan isla joognay hotel saxaafada isla joognay wuxuu ahaa nin oo mar walba dadku ay kala hadlaan security-giisa sida uu cornelku sheegay wuxuu ahaa niman baqatin yari galin oo Ilaahayna aaminsanaa systemka dawladnimada aaminsanaa nin asagoo kusimaha taliyaha CID wuxuu ahaa laba goor ahaa marramana inaan gallo cornel oo qadiimiya oo maanta dadka generaalada wata uu ka horeeyay uu ahaa aan kuna ciil qabin kala jeclayna anagoo xildhibaankiisa ahba bay dhibi jirtay isaga ma dhibi jirin shalamaha daraad wada qadaynin wuxuuna deganaa waxaad garanaysaa Madiina uu deganaa isagoona askarina haysan qorina haysan nin sidaas systemka u aaminay iyo dawladnimada iyo Ilaahay buu ahaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu jannadii siiyo dawladdana waxaan ka rabnaa in maalin walba waa la dilay dad baa la qabtay baa leeyahay waxaan ka rajaynaynaa in si degdeg ah gacan ku dhiiglaha Maxamed Cabdi Nuur naga qaaday oo u shaqeynaya CID oo ay shaqadiisu sida cornelku sheegay inuu baaro dilalkaas iyo dambiyadaas marxuum Maxamed Cabdi Nuur ayaa lagu tiriyaa dadka kaliya ee aadka dalka dibadiisa ugu soo bartay arrimaha dambi baarista waxaana 1986 uu arrimaha dambi baarista ku soo bartay dalka Talyaaniga Aweys Maxamuud Jilcow Royal TV Muqdisho.